الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله waxaan rabaa caawa inaan kelimad kooban halkan ka soo jeediyo taas oo ku socota hadalkii uu jeediyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee uu ka jeediyey dalka Jarmalka waxaan u bixiyay madaxwaankan waxaan u bixiyay ka farxintii atbaacdii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxdii uu wadankooda uu joogay ee Jarmalka ah ee uu meeshana ku amaanay iyo dhaleecayntii iyo aflagaadeyntii uu u geystay culimada iyo axaadiista nabigeena Muhammad calayhi salaatu wassalaam uu u geystay waxaan rabaa afar qodob oo kelmadiisii ku saabsanayd inaan ka jawaabo qodobka koowaad Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii uu ka hadlayay waxa uu yiri culimadu marka ay xaqirayaan dumarka waxa ay soo qaataan hadalka ah naaqisaatu aqlin wa diinin way dumarka marka wuxuu yiri hadalkaasi ay ku xaqirayaan culimada dumarka siyaasadda doonaya marka ay rabaan inay siyaasadda galaan dumarka ay hadalkaasi ku xaqiraan marka waxaan uga jawaabayaa hadalkaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu yiri hadalkaasi ma aan hadal culimo waa hadal wahyi min Allah subhanahu wa ta'ala hadal Allah subhanahu wa ta'ala wahyi ah oo nabigeena Muhammad calayhi salaatu wassalaam uu ku hadlay oo wahyigaasna uu lagu gutay ala lisaani rasuulihi sallallahu alayhi wasallam حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمذا وايه وحاو عبد الرحمن عبد الشكور دلعيني حديث كاسي دهيا ناقصات عقل ودين ويدمرك إسلا سؤاشاسي وحا ويديي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سحابياتك هل كاسي جوغي مركي وكيري يا معشر النساء تصدقنا حديثك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نبي مركي أي ويديين سحابياتك أي كير هذين رسولك إلهيو محانو كن قني أما ضمرك أي كن قضين ناقصات عقل نبي محمد عليه الصلاة والسلام وجوابي سو مرقاتك ننك رقعه سو أمردقمو لوقف أو ضمر سو أمردقمان ها markaas buu wuxuu ku yiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa way ku noqotay naaqisaatu aqlin sidaa waa ku noqoteen su'aashii bay hadana ku celiyeen waxay yiraahdeen maxaan ku noqonay naaqisaatu diinin diinta inaan nahay kuwa ka nusqaansan maxaan ku noqonay wuxuu ugu jawaabay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam midiin markay xaa'ido noqoto soo kama tagayso salaadii iyo soonkii oo cibaadadii ahayd haabay ku yiraahdeen markaas buu wuxuu ku yiri sidaa ayaa waxa ku noqoteen naaqisaatu diinin baad sidaa ku noqoteen marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu garan waayay waxay garteen saxaabiyaadkaasi qiimaha iyo sharafta badan leh wuxuu aqrin kari waayay uu baari kari waayay qoraalada iyo waxa way xadiiskaasi shuruuxda laga bixiyay ee wanaagsan ayuu baari kari waayay asigoo waxa way dantiisa ku wata oo awrkiisa ku kacsanaya ayuu wuxuu raba ka sheegay xadiiskaasi wuuna u gafay qodobka labaad ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadalkiisa aan raba inaan kaga jawaabo waxay tahay wuxuu yiri raggu marka ay hadlayaan oo ay ka hadlayaan gabdhaha siyaasadda soo galaya waxay soo qaataan axaadiis aanan wax asal lahayn oo falsa ah axaadiis falsa ay soo qaataan oo meel laga keenay aysan aan la aqoonin Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay axaadiista ku soo aroortay gabadha muslimada ah inay xukun qabato ama siyaasad u tartanto ama ay u ololeyso axaadiista ku soo aroortay waxaan u maleynayaa inaad ula jeedo xadiisu Abi Bakr iyo xadiisu Abi Saciid al-Khudri labadoodaba waxaan rabaa inaan tilmaamo aan ku hormaro xadiidka ah naaqisaatu aqlin wa diinin ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu yiri waa falso wax ka jira malahan meel laga keenay oo la hubana malahan ayaan rabaa inaan tilmaamo xadiidkaasi waxa wariyay
saxaabiga jaliilka abi saciidin alkhudri radia allaahu canhu ardaa waxaa soo saaray xadiidkaas imaamu albukhaari iyo muslim wuxuuna ku yaalaa xadiidkaasi asaxu lkitaabayni bacda kitaabi illaahi subxaanahu wa tacaala labada kitaab ee ugu saxiixsan kitaabka alle marka laga soo noqdo oo ah bukhaari iyo muslim imaamu albukhaari wuxuu ku soo saarayaa kitaabkiisa saxiixulbukhaariga ah mujalladda koowaad safxada 68aad buu ku tilmaamayaa xadiidkaas imaam muslimna kadalika sidoo kale mujalladka koowaad safxada 86aad buu ku tilmaamayaa xadiidka labaad ee cabdiraxmaan cabdishakuur uu yidhi asalna ma lahan faalsa waaye meel laga keenay ma lahan dantiisa uu waxaa waaye awrkiisa uu ku kacsanayay markaasi wuxuu ku yaalaa sida aan sheegi doonno xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa ama lafdigiisu waxa weeye xadiidu abi bakra waxa weeye lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a qowm ma liibaano arinkooda iyo taladooda u dhiibto qof dumara nebiga inoo sheegay sal alla alih wasalam xadiidkaasi fii saxiixi albukhaari ayuu ku yaalaa raqamka ama nambarka 4425 nambarkaas ayuu xadiidka ku soo aroorinaya imaamu albukhaari wakadalika imaam النasaa'i fii sunanihi ayuu ku tilmaamayaa mujalladka 8aad safxada 227 ayuu ku tilmaamayaa imaam النasaa'i waxaa xusid mudan imaam النasaa'i baab ayuu baabeystay markii uu ka hadlayey gabadha muslimadda ah inaysan qaban karin xil ama aysan u tartami karin annahyu can isticmaali الnisaa'i fi اlxukmi baab ayuu baabeystay wuxuu yidhi baabu الnahyi can isticmaali الnisaa'i fi اlxukmi baabkani waxaa lagu nahyinayaa oo lagu diidayaa inay dumarku inay isticmaalaan oo ay u tartamaan oo ay u suxulduubaan fi lxukmi xukunka inay u suxulduubaan marka sidaa darteed waxaan u sheegayaa cabdiraxmaan cabdishakuur axaadiidtaasi sugan ee bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodaba ku sugan ayuu dafiray wuxuuna ku tilmaamay axaadiid faalsa ah qodobka saddexaad ee cabdiraxmaan cabdishakuur ee uu ku qaldamay ee aan rabay inaan u tilmaamo waxa uu yahay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu tusaale inoogu soo qaatay islaanta gaaladda ah ee waddankan jarmalka ah madaxda ka ah ama ra-iisul wasaaraha ka ah ee la yidhahdo angela markel markuu ka hadlayay maadaama uu waddankeedii joogay ammaan buu kala duldhacay asigoo danihiisa iyo waxa waaye awrkiisa ku kacsanaya wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur angela markel waa qof tusaale loo soo qaato waxayna tusaale u tahay gabar kasta oo muslimada ama aanan muslimad ahayn oo xil u tartamaysa marka waxaan leeyahay anigana waxaan ugu jawaabayaa qof gaalo ah gabar muslimada tusaale uma noqon karto ee gabadha muslimadda ah waxaa tusaale u ah saxaabiyaadkii wanaagsanaa xaasaskii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanay nebigiisa uu noo tilmaamay oo taariikhda qiyamka ah lahaa ee saxaabadii ahaa ridwaanullaahi calayhim ayaa kuwa lagu dayanayo oo waddadoodii la raacaya ah oo salafu haadihi اlumma ah cabdiraxmaan cabdishakuur qodobka afraad ee aan ku haysta wuxuu yahay marar badanna uu ka sheegay meelaha uu ka hadlo inta badan balkhiisa gabadhii la ohan jiray qur'aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga hadlay wuxuu yidhi markii uu ka hadlayay balkhiisa wuxuu yidhi balkhiisa waxay hormarisay dimuqraadiyadda aftuunii fii amrii maa kuntu qaadicatan ayuu soo deliishaday oo talada iiga fadwooda maa kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun marka asigoo sidaa ula jeedo wuxuu yidhi dadkii bay sheer gelisay taladii ee waddanka marka sidaa darteed waa arin dimuqraadi ah oo ay ku dhaqaaqday balkhiisa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan leeyahay xilligii balkhiisa ereyga dimuqraadi ah maba la aqooninba ereyga dimuqraadi ah oo hadda xaadis ah oo quruuntii dambe iyo waqtiyadii dambe la keenay sababtay ku imaadayna la yaqaano xilligaasi maba la aqooninba midda kale aan ku xasuusiye balkhiisa xilligaasi diin muslim ama diin islaam maysan haysanin diin islaam maysan haysanin sababtoo ah waxaa kuu caddaynaysa markii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam loo keenay balkhiisa oo ay soo maraysay meeshii quraarada ahayd ee hoosteedana biyaha ay marayeen ayay cabsatay markaasay markii ay maraysay bay saaqeedii iyo waxa waaye dhudhunkeedii kor u qaaday markaas baa ilaahay asigoo ka xikaayoonaya waxay tidhi
qaalat rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi اlcaalamiin ayay alla subxaanahu watacaala uu inoo tilmaamo inooga xikaayooday inay sidaa ku dhahday allahi sulaymaan calayhi salaam. intaasi waa afartii qodob ee cabdiraxmaan cabdishakuur iiga muuqday kelimadii iyo hadalkii uu ka jeediyey jarmalka, uuna waxaa waaye awrkiisa ku kacsanayay iyo danihiisa, uuna u gafay diinta ilaahay subxaanahu watacaala iyo axaadiidta sharfan nebigeena iyo suubanaheena sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay. waxaan rabaa laba qodob inaan raaciyo. qodob wuxuu ku saabsan yahay dadka videogiisa dhegaystay ama daawaday ama joogay goobta uu videoga ku samaynayey ama khudbada uu ka jeedinayay. dadkaasi waxaan leeyahay, dadka goobta joogay, alaysa minkum rajulun rashiid, qof hanuunsan miyuusan idiga mid ahayn oo cabdiraxmaan cabdishakuur qaladkaasi ka qabta oo waxaa waaye diin ahaan u baraarujiya oo u sheega arrinka uu ku dhawaaqay inay qalad tahay, uu ku tuntay axaadiidtii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee ku sugnayd bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodaba. miyuunan ku jirin qof hanuunsan oo waddada hanuunsan tusa cabdiraxmaan cabdishakuur? hadduusan ku jirin, dadkaasi waxaa waajib ku ah inay diinta bartaan si beri ka maalin mar labaad uusan ninkaa oo kale oo danaysta ah uusan waxaa waaye gaf ugu geysanin axaadiidtii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaabaha la midkaa sida waxyiga oo qur'aanka munasalka ee musharafka ah. hadalka qaybtiisa labaad ee qodobkaasi waxaan u jeedinayaa ummadda videoga cabdiraxmaan cabdishakuur daawanaysa ama horay u daawatayba. waxaan leeyahay qof kasta oo muslim ahow ha iska raacin oo hayaraac ha noqonine waxaa cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku hadaaqay culimmada weydii si ay kaaga jaahil bixiyaan, lianna asigu waa siyaasi danaysta weeye dan buu ku gaarayaaye waxaa waaye waxaad weydiisaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. ilaahay subxaana watacaala baa sidaa odhanaya. cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan leeyahay kelmadda ugu dambayso oo si gooniya aan asiga ula hadlay. waxaan leeyahay cabdiraxmaan, waddankan waxaad dan ka leedahay oo aad haminaysaa kursiga ugu sarreeya waddanka oo madaxtinimada waddanka ah. adiga oo qof muslim ah kursiga ugu sarreeya waddankana haminaya inaad ku hadaaqdo kelimaadkaasi cajiibka ah ee waxaa waaye dembiga xambaarsan, wax laga xumaado waaye. haddii ummaddan islaamka ah ee awowgooda labaatanaad islaamku yahay oo waxaa muslimka ahaa ee diintu xilliga iyo xilli kasii fogba ay waxaa waaye ummaddan soomaalidu ay qaadatay, haddaad doonayso waxa ay wax ka sii daran oo kuu qarsan inaad ummaddaa la imaado, sharaf darray kuu tahay, caarun calayka inaad ummaddan madaxweyne u noqoto. waxaan ku soo gabagabaynayaa cabdiraxmaan cabdishakuur, intaadan dhimanin ka toobadkeen hadalladii xumaa iyo gafkii aad u geysatay sunnaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo jeesjeeskii aad waxaa waaye ku samaysay. waxaan leeyahay towbadu way furan tahay mar walba, qofku wuu dembaabaa, alla subxaanahu watacaalana towbada wuu ka aqbalaa. kelmadaydii halkaasaan kusoo gabagabaynayaa. hada wabillaahi towfiiq. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk.